السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا channelkayga MayaBeauty. maanta soo arkaysiinba waxaan sameeyay glossy eyes waxa la yiraahdo indhaha ayaan ka dhigay maanta glossy waxa weeyaan trend oo last year buu aad u socday. this yearna dad badan baa marsadaa laakiin waxa weeyaan maanta eyeshadow look oo unique oo different ayaan sameynay colorkan gabar bay iga soo codsatay laakiin waxay iga tiri eyeshadow ka dhig. maanta waxaan ka dhigay markaa glossy lids soo arkaysiin baa I hope inaa ka hesheen saan u sameeyay. I hope inaa baran kartiin so loo sameeyo glossy lids. I think glossy lids kalarada matka oo dhan baa isticmaali kartiin saan nigu sheegi doono insha Allah videoga laakiin wuxuu ku qurux badan yahay taswiirada etc. you know qofku markuu kamarad video shoot sameynayo amba taswiiro iska qaadayo oo de professional I think waxa weyn very good qurux look aad u qurux badan especially taswiirada uu ku soo baxa. marka insha Allah maanta waa kaas makeup lookan waan dhameeyay as well waxa ka arki doontiin Instagram-kayga amba channel-kayga kale Maya Talks ayaan soo gelin doonaa lookan amba Instagram-ka ayaa iga follow gareyn kartiin kana waan soo gelinayaa soo aragtiin productyaasha oo dhan aan isticmaalay xagaas ay igala socon kartiin marka xaga ka maqan yahay amba MayaBeauty channel-ka ka maqan yahay Instagram-ka ayaa iga follow gareyn kartiin amba Facebook xagaas ayaan story-ga soo gelinayaa waxaan qabanayo marka insha Allah igu iloobin inay iga follow gareysiin Snapchat-ka, Instagram-ka, Facebook-ka insha Allah daawasho wacan. I hope inaa ka heshiin videogan like gareeya videogan iyo comment gareeya haddaa ka heshaan look-ga indhaha aan sameeyay maanta. Okay, powder baa ii marsan soo arkaysiinba indhaha hoostiisa oo dhan sanka meel kasta aan highlight gareeyay ayaan powder marsaday. videoga kale aan sameynayo ayaan tusayaa sida loo sameeyo flawless base iyo product cusub aan soo iibsaday oo la yiraahdo Charlotte Tilbury. insha Allah waxaan doonayaa inaan af Soomaalina nagu macneeyo makeup-ka aan soo iibsaday. marka waxaan doonayay inaan obviously eyeshadow geenin tuso maanta waayo qof baa iga soo codsaday inaan sameeyo colorka blue-ga laakiin blue aad inaan sameyn blue yaro qurux badan oo badda u eg yaa laga yiri. marka alxamdulillah wallahi shade-ka waan haystaa amba colorka maanta daman eegi aan raadinayay blue-ga iyo inantu sheegaysay marka taswiiraan u diro xankeedii kan ma marsada ma kama marsada marka waxay ka tiri kaas marso. marka insha Allah waxaan isticmaalanaa waxa weyn carnival palette-keeni ayaan isticmaalnaa maanta runtii waxay iga tiri eyeshadow qurux badan samee. marka ma doonayo maanta inaan eyeshadowgii caadiga aan isticmaalnay inaan sameeyo. waxaan sameynayaa ama tusayaa waxa weyn trend I think sanadii hore ayuu aad dadku u marsan jireen laakiin waxaa la dhahaa glossy lids ilaa imika I think dadku way yar toojiyeen maan maleynaya laakiin mar bay ahayd caan inuu glossy lids la marsado xaggan Ingiriiska horta caan bay ahayd. marka maanta waxaan tusayaa sida loo sameeyo glossy lids. glossy lids waxaan ka wadaa color any color baa dooran kartaa. waxay ku qurux badan tahay wuxuu ku qurux badan yahay actually kalarada blue-ga kalarada pinkiga maha shimmerka ama shiny-ga laakiin kalarada caadiga ee tamaha kuwa shimmerka waxaan isticmaali kartaa matte. so kalarada matte-ka sida kanoo kale eyeshadow kasta waxaa ku arkaysaa amba xabad amba laba amba kuwa badan oo matte marka kalarada matte-ka da soo qaadatid oo marka dambana next step waan tusi doonaa. next step waxaan isticmaalana waxa weyn gloss waxaan ka wadaa lip gloss-ka afka la marsado ayaa in yar back of your hand gacantaada xagga dambe marinaysa and then gloss-ka ayaa dul marinaysa. waan tusi doonaa si qurux badan especially taswiirada aad buu ugu qurux badan yahay. marka waxaan isticmaalanaa maanta colorkan soft spot la dhaho waa kaas xaggaas ku yaala waa ka soft spot oo maanta isticmaalana colorkan bay gabadha igu codsatay laakiin maanta waxaan sameynaya waa glass. haddaad doonaysa insha Allah waxaan doonayaa inaan hopefully waxaan yar already waxaan mariyay concealer mar hore marka waan yar blend garanaya concealer-kii
and inshallah weeka dambe ayaan sameyn doonaa colorkaas ayaan look ku sameyn doonaa amba indhaha oo dhan ayaan sameyn doonaa inshallah. And marka eyeshadowgaygaan soo yaro qabsanaya, actually farteedaan isticmaalay because ma doono inaan blend garay, waxaan doonaya more like pigments inuu noqdo oo colorku si fiican igu dego ishayda, waayo waxaan doonaynaa inaan gloss dul marino. Marka colorkan baan isha oo dhan, I hope inaan colorka soft spot waan soo qaatay. Palettekan horta su'aalo badan baa liiga soo weydiiyey palettekan. Anigu palettekan waxaan kasoo iibsaday Beauty Bay. Beauty Bay waxa weeyaan online dukaan ku yaala, online weeyaan, online baa lagu, basically waa dukaan online ah, and especially anu Ingiriiskan degaya, marka makeupka you know lagu hayo Mareykanka haddaan doonayo amba makeup-yada lagu hayo magaalooyinka kale zoomed baa in si fiican u arkaysiin. Marka makeup-yada aan iibsan karayn, like dukaanada aan ka heli karayn ayuu hayaa, marka waa online reseller oo kale. Marka toos buu xaafad igu keenaa, I think waxay ku yaalaan Manchester baan u maleynayaa, horey ayuu u yimaadaa. Marka laakiin haddaa Ingiriiska degan tihid waxaa ka heli kartaa Superdrug. Palettekan Superdrug mar horaan arkay, waan garab maray, marka waan arkay inuu hayo Superdrugna. Marka haddaa Superdrug haysatiin, haddaa reer Ingiriis tihiin amba meel kasoo ku yaalaba Superdrug, I'm sure just UK buu ku yaalaa, but I don't know about Ireland iyo meelahaas. Laakiin Superdrug waa ka helaysaa palettekan. Xagga hoosta ayaan si fiican ugu soo qori doonaa waxa la dhaho, laakiin waxaa la dhahaa Be Perfect Cosmetics. Waxa weeyaan paletteska Stacey Marie makeup artist weeyaan, iyada palettekayga weeyaan Carnival XL Pro palette baa la dhahaa. And I know kan oo halfkiis ayaa jira, marka haddaa ka doonaysiin kan waxaan u maleynaya yar qaali yahay, laakiin waxay iibsan kartiin isagoo halfkiis ayaa la hayaa as well. So creasekan ku toojiyay, saa u arkaysiinba xakan buu ku joogsaday, ma blend garanayo amba anything like that ma isticmaalayo. And then waxaan soo qaadanayaa glosska, waan ugu soo noqon doonaa. Glosskii baan soo qaatay. Glosskan waxa weeyaan waxa la dhahaa NK Makeup Lip Gel with Vitamin C. waa clear lip gloss. Any lip gloss waa soo qaadan kartiin, I think any baa ku shaqeynaya. Marka to be honest kan maan isticmaaleen, waa cusayb, laakiin waxaan doonayaa inaan in yar saa ugu tuujiyo the back of my hand. So arkaysiinba in yar, in badan maaha, intaa yar ayaan. Marka waxaan soo qaadanayaa brush, ayaan soo qaadanayaa any brush inaan mariyo weeyaan, laakiin farahaygaa marinaya, why not, you know what, farahaygaa marinaya, brushka waan iska daynaa maanta. I think si fiican u arko hakaan marinayno, waad arkayaa, sidaas ayaa u dul marinaysaa colorka. Sawirkiisiinba colorkii aad iyo aad buu qurux badnaaday, especially saan yiriba makeupka si fiican buu ugu soo baxayaa, taswiirada si fiican buu ugu soo baxayaa. Marka waxaan sameynayaa isha kale. Okay, waad arkayaa, waan sameeyay lookii, waan dameeyay indihiina, waan soo dameeyay. Marka final lookii waa kan, indihii waan soo dameeyay, makeupkii waan wala dameeyay, markuu dambeysa spray baan wajiga oo dhan wala mariyay. Inshallah I hope inaad ka hesheen videogan Glossy ayga aan maanta sameeyay. Inshallah in yar baan igu zoom garanayaa indaha, waa kaas, waa Glossy aad u qurux badan amba Glossy aad u qurux badan. I hope inaad ka hesheen, aad buu ugu soo baxayaa. Marka furuuraha maan ka digin gloss because already gloss indihii baa shine garanaya, marka haddaan furuurahana gloss ka digo labaduba marka shiny buu noqonayaa, ma qurux badno. Matte lipstick baa marka furuuraha marinay. It looks perfect. I absolutely love this look. Saan yiriba iyo maanta waxaan iga iloobay lashes ma xirni, marka maybe waxaa isleedahay maanta MayaBeauty different buu yara eeg tahay. It's because lashes ma marsani, natural lasheskayga umaan haystaa amba xiran yahay, xiran yahay ma xirno, natural lasheskayga umaan you know
haystaa marka kalar kaste ku try gareeya matte only sani sheegay videoga matte eyeshadow hada ku isticmaashin kalarada pinkiga yellowga huruuda orange-ka kalaradaas oo dhan ee aad u soo baxaya maanta waa kalar yar oo khafiif ah because gabadha iga codsatay kalarkan marka aad baan maasantahay waan ka helay saan u sameeyay loogan I hope in adiguna ka heshay laakiin insha Allah waan kugu ballan qaadi doonaa dad daawanaysa videoga kale wiiga dambe sameeyo ayaan look sameyn doonaa kalara blue iga codsatay oo khafiif ah marka insha Allah waan ku sameyn doonaa marka intaas ma ku soo gabagabeynaya videogan iga loobina like comment iyo share ka asxaabta u dira walaasha u dirsan makeup lookan u sameeyay iga loobina inay iga follow gareysiin Snapchat iyo Instagram iyo Facebook page-kayga ii like gareeya Maya Talks insha Allah wino wiiga dambe look adoonaysiin xaga comment ku soo qora assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh